وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلمك واجي بريبا أو بحلقة ورابشو واجي ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan halka ku duubaynaa maadada xisaabta fasalada toddobaad ee dugsiyada cigaal anigoo ah macallin Cabdiraxmaan Xasan Guure. casharkeena koowaad waxaynu ku baran doonaa isku beddelka halbeegyada mugga mitir 3 jibaaran oo loo bedelayo sentimitir 3 jibaaran iyo sentimitir 3 jibaaran oo loo bedelayo mitir 3 jibaaran. tusaalaheena koowaad mugga sajibika waa 13 mitir oo 3 jibaaran oo tibaax sentimitir 3 jibaaran ahaan macnaha u bedel sentimitir 3 jibaaran ayaynu u qori doonaa. haddii mugga layna siiyo yahay 13 mitir oo 3 jibaaran waxaynu hore u naqaanay halka mitir inuu leeyahay 100 sentimitir sidaa darteed 1 mitir oo 3 jibaaran waxay noo leegaan doonaa 100 sentimitir oo 3 jeer la isku dhuftay 100 jeer haddaan isku dhufanana waa 1 milyan oo sentimitir 3 jibaaran ayuu leeyahay halka mitir ee 3 jibaaran. sidaa darteed markaynu mitir 3 jibaaran u bedelayno sentimitir 3 jibaaran waxaynu ku dhufanaynaa hadba inta layna siiyo ayuumaynu ku dhufan milyan. tusaale ahaan iminka waxaa layna siiyey 13 mitir baa layna siiyey 3 jibaaran waxaynu ku dhufan milyan. jawaabtaynu helaynana waxay noqon doontaa 13 mitir 13 milyan oo sentimitir 3 jibaaran. tusaalaheena labaad waxaa layna siiyey 2 milyan iyo 500 kun oo sentimitir 3 jibaaran waxaa la yidhi u bedel mitir 3 jibaaran. haddaba markaynu sentimitir 3 jibaaran u bedelayno mitir 3 jibaaran waxaynu samayn doonaa hadba inta layna siiyo baynu u qaybin doonaa milyan. waaye waxaa layna siiyey 2 milyan iyo 500 kun oo sentimitir 3 jibaaran waxaynu u qaybin doonaa milyan. jawaabteena soo baxaysa waxa weeye 2.5 mitir 3 jibaaran. layliga koowaad casharka koowaad layliga koowaad su'aasha koowaad u tibaax mugga soo socda sentimitir 3 jibaaran. dhammaan mugaggan wax lagu siiyey mitir 3 jibaaran waxa laga doonayaa inaad u bedesho sentimitir 3 jibaaran adoo ku dhufanaya milyan. su'aasha labaad u tibaax waxa soo socda mitir 3 jibaaran waxa lagu siiyey sentimitir 3 jibaaran dhammaantood waxaad u bedeli doontaa mitir 3 jibaaran adoo u qaybinaya milyan. casharkeena labaad waa halbeegyada qaadka macnaha weelku inta uu qaadayo ayaynu doonaynaa inaynu ku baranno. waxaynu naqaanaa halka mitir ee 3 jibaaran wuxuu inoo leeyahay 1 litir. 1 sentimitir ee 3 jibaaranna wuxuu inoo leeyahay 1 mililitir. halka litirna wuxuu inoo leeyahay 1 mililitir. arday waxaa laga doonayaa inaad xidhiidhadan halbeegyada qaadka inaad qaybtaan oo xafidaan. halbeegyadan meelo kala duwan baa laga isticmaalaa. mililitirka oo kale mililitir waa halbeeg yar oo lagu cabiro qaadka waa halbeeg yar oo lagu cabiro qaadka. meelaha laga isticmaala waxaa ka mid ah tusaale ahaan dhakhaatiirtu waxa ay dawada ku cabiraan mililitir sababtoo ah qiyaasta looga baahan yahay dawadu maadaama ay aad u yar tahay halbeega lagu cabirayaa waa mililitir. haddaba si litir loogu bedelo mililitir waxaa lagu dhuftaa 1,000. hadba inta litir lagu siiyo ayaad ku dhufan doontaa 1,000 si aad u hesho mililitir. sidoo kale si mililitir loogu bedelo litir waxaa loo qaybiyaa 1,000. hadba inta mililitir lagu siiyo ayuunbaad u qaybin doontaa 1,000. tusaalaheena koowaad imisa mililitir ayaa ku jira imisa mililitir ayaa ku jira waxa soo socda ba 3 litir waa imisa mililitir 2 litir iyo badh
waa imisa mililiter afar loo qaybiyey 3 litir waa imisa mililiter haddaynu ka horeyno ba'da waxaan leenahay furfuris ba waxaanu hore u naqaanay 1 litir inuu leeyahay 1 mililiter sidaa darteed 3 litir waxay noo leegaan doonaan 3 lagu dhuftay 1 mililiter maadaama 1 litir uu leeyahay 1 mililiter jawaabta la inaga doono maxay ahayd 3,000 mililiter waayo taada haddaynu eegno waxaynu naqaanaa 1 litir inuu leeyahay 1 mililiter sidaa darteed 2 litir iyo badh 2.5 litir waxaynu odhan doonaa hadba inta litir la siiyo baynu ku dhufanaynaa 1 mililiter maadaama dhibic ku jirto 3 dhibic mid ka mid ah dhibicdeenu kaga saari labada kalena waynu ku dari jawaabta la inaga doonayo waa maxay 2500 mililiter jaada 1 litir waxaynu naqaanaa 1 mililiter inuu leeyahay sidaa darteed 3 loo qaybiyey 4 waa tiro dhafan waxaanu marka hore sameeyay horgalahaynu ka saaraynaa inagoo hooseeyaha horgalaha ku dhufanayna sareeyahana u geynayna si aynu ugu bedelno jajab maqumana 4 baynu 4 ku dhufan waa 16 3na waynu u geyn waa 19 loo qaybiyey 4 dabadeedna waxaanu ku dhufanaynaa 1 sidii ku hore baynu ugu dhufanay jawaabta inoo soo baxaysa waxa weeye 4750 mililiter layliga koowaad 10ka labaad waxa layna siiyey su'aasha koowaad imisa mililiter ayaa ku jira waxa soo socda dhammaantood ardayga waxa lagu siiyey liters baa lagu siiyey litiro ayaa lagu siiyey si aad ugu bedesho mililiter mid walba waxaad ku dhufan doontaa 1 su'aasha labaad 10ka labaad layliga waxa weeye imisa liter ayaa ku jira waxa soo socda dhammaantood waxa lagu siiyey waa maxay waa mililiters si liter aad ugu bedesho waxaad samayn doontaa 1 ayaad u qaybin doontaa 10keen labaad halkaas uga eegyahay 10keena saddexaad waxa la yiraahdaa culayska ayaa la yiraahdaa waxyaabaha ku baran doono waxa kamid ah inaynu isku bedeli karno halbeegyada culayska sida tan iyo kilogram ardayo tan waa halbeegyada culayska kuwa ugu waaweyn waxa laga isticmaalaa meelaha rarka maraakiibta gawaarida rarka ay sidaan waxa la leeyahay gaarigu intaas tan ayuu sidaa raashina haddaba halka tan wuxuu noo leeyahay 1 kilogram ama waa 20 kiish oo min kontona marka 20 kiish ama 1 kilogram ayaynu leenahay waa hal tan markaynu tan u bedelano kilogram 1 baynu ku dhufan kilogram markaynu tan ku celinaynana 1 baynu ayaynu u qaybin tusaalaheena koowaad tusaalaha koowaad u bedel waxa soo socda kilogram maxaa layna siiyey a 17 tan b 7.96 tan c eber dhibic 842 tan haddaba mid walba si aynu ugu bedelno kilogram waxaynu sameynaa waxaan leenahay halka tan wuxuu noo leeyahay 1 kilogram wixii layna siiyey muxuu ahaa tan kaynu dhinac isku marin haddaba 17 tan maxay noo leegaanayaan x tankiya tanka waynu isku jari tankiya tanka waynu isku jari halka waxa noo yaala 1 halkana waxa noo yaala 17 marka isweydaar baynu isku dhufan x tiya 1 baynu isku dhufan waa x 17 kun baan ku dhufanayaa 17 oo kilogram sidoo kale 7.96 tan hal tan waxaan leeyahay wuxuu la mid yahay 1 kilogram intanoo tan waxay nala mid tahay x labada tan waynu isku jari halka waxa noo yaala x iyo 1 waynu isku dhufan waxa weeye waa x 7.96 na waxaan ku dhufanaynaa waa 1 jawaabteena soo baxaysa waxa weeyaan 7960 kilogram c iyadna waa sidoo kale waxa la mid tahay waxa la siiyey eber dhibic 842 tan hal tan maadaama uu la mid yahay 1 kilogram intanoo tan imsay noo la mid yihiin waxaynu odhanaynaa hadba inta tan la isiiyo ayuun baynu ku dhufanaynaa 1 dabeedna maadaama ay dhibicda ka xigaan 1 saddex god xagan ka xigaan 1 aynu ku dhufanay dhibicdu ma ka baxaysa waa tusaalaha labaad u bedel waxa soo socda tan
eeda waxa la nasiyay 7500 kilogram haddaba maxaa la iga doonaya tan baa la iga doonaya waxaan leeyahay hal tan waxa leegiya 1 kilogram imika waxaan haystaa kilogram dhinaca kilogram ku xigaan dhigaya 7500 kilogram imisa tan bay noqonaya sidoo kale kilogram kan isku jari waxaan samaynaynaa 7500 qalna waxaan ku dhufanayaa 1 egas tan halkan aan ku dhufan dabeedna waxa leeyahay 1000 haddaan ku dhufto egas waa 1000 egas 7500 haddaan ku dhufto 1 7500 kilogram waaye dabeedna dhawalba 1000 baan u qaybin egas waxay soo baxaysaa 7.5 tan baada 620 kilogram waxaan leeyahay hal tan wuxuu leeyahay 1 kilogram 620 kilogram imisay leegaanayaan egas baynu qaadan dabeedna waxaan isweydaar baan isku dhufan 620 ka xagan aynu ku dhufan 1000 kan egas baynu ku dhufan dabeedna dhawalba 1000 baynu u qaybin jawaabtay noo soo baxaysaana waxay noo noqotay eber dhibic 6 tan layliga waa layliga 10ka saddexaad layligiisa su'aasha koowaad u bedel ardayga kilogram waxa soo socda dhamaantood waxa lagu siiyay tan baa lagu siiyay haddaba si aad kilogram ugu bedesho maxaad sameyn dhamaantood kun baad ku dhufan su'aasha labaad waa iyadna waxa lagu yiri u bedel tan waxa soo socda tan baa loo bedelay maxaa lagu siiyay dhamaantood kilogram baa lagu siiyay si aad ugu bedesho tan sida maxaad sameyn waxaad u qaybin dhamaantood waxaad u qaybin kun baad u qaybin casharkeena maanta halkaas ay ku eegayay intayna mid lamida dib isku soo kulmi doono waxaan la isku dhaafayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته